Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan oo wacan, isku soo noqod fiican. Dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa saaxiibayaal inaad caafimaad qabtaan. Muddaan kala maqnayn, isku soo laabasho wacan. Bal kilibka yar ee kooban waxaan kaga hadlayaa laba qodob oo ay tahay inaad iska ilaaliso intaad yar tahay iyo guud ahaan noloshaadaba. Siiba dhallinyaradana loo baahan yahay intii aadka u da'yar yihiin inay aad uga fogaadaan labada qodob. Qodobka ugu horreeya waxa weeye noloshaada iyo firaaqa kala ilaali. Inaad firaaq badan hesho iska ilaali weligaa. Sababtu waxa weeye haddii noloshaadu ay bannaanaato oo aad waxba qaban weydo, waxaa soo baxaysa in mustaqbalkaaga dambe uu marnaanayo oo wax munaafacaada iyo wax fiican oo la taaban karo aanad gaadhin. Nolosha qof walbana yool iyo hami iyo hiigsi iyo goals buu leeyahay inuu gaadho doonayaa. Waxaad goolashaa iyo ahdaafta aad leedahay ee niyadaada ka dhex guuxaya habeen iyo maalin ku gaari kartaa waxa weeye inaad wax qabato oo tallaabooyin aad qaado si aad meesha aad doonayso aad u gaadho. Waxaad iska ilaalisaa markaa inaad firaaq hesho. Firaaqa waa camal la'aan. Haddaan ku macneeyo inaad camal la'aan noqoto oo nolosha iyo shaydaanku ay camal kuu sameeyaan. Dadkii hore ee wanaagsan waxay odhan jireen naftaadu intaanay ku mashquuli. Naftu marnaba bilaa shaqo maaha. Wuxuun bay qabanaysaa. Shaydaan oo laguu diray oo Ilaahay hortiisa ballan ka qaaday inuu ku luminayana shaqadiisii buu wataayo adduun iyo aakhiro inaad anfacaaga raadsato iyo wixii dantaada ah uu ka soo horjeedaa. Marka maadaama oo arrimahaas oo dhan ay jiraan iska ilaali inaad firaaq hesho ood noqoto qof bilaa camal ah, noloshiisa soo toosa, cuna, cabba, seexda, suuqaa kala meeraysta, waqtigiisa dad uu xanto, turbo ciyaaro, qaad uu cuno, wareeg ku jira aad noqoto. Hadhow waxaad soo bixi doontaa inaad noqoto qof nolosha parasite ku ah ama dulsaar ku ah oo aan cidna dan ka lahayn. Ogowna qofka intuu yar yahay aan dhididin 20 jir qof aan ku dhididin 60 jir buu ku dhididi doonaa. Man tamattaca fii sigharihi tabaca fii kibarihi baa la yidhi. Qofka yaraantiisa ku raaxaysta markuu weynaado unbuu tabcaa. 60 jir baa shaqo ku bilaabi doonta. Xilligaad nasan lahayd ee midhihii aad beeratay goosan lahayd ayaa tacab bilaabi doontaa. Horta qodob waa qodobka inaad iska ilaaliso firaaqa weliba intaad yar tahay. Ku dadaasho inaad naftaada mashquuliso. Haddaad xataa wax kale qaban weydo inaad naftaada inaad camal u samayso. Wuxuun ka qabo, wuxuun qabo. Wax oon idin qof nool baa tahay. Qodobka labaadna waxa weeye jahliga la dagaalan. Jahliga iyo aqoon darrada iska ilaali. Wax walba haddaad doonayso nolosha aqoon bay ku xidhantay. Wax baro. Weliba inta maskaxda fresh ka tahay ee buuqa iyo mas'uuliyadda iyo stressku aan kugu furmin, waxaad ku dadaashaa inaad wax barato. Qodobkaas wuxuu aad weliba muhiim u yahay dadka aadka u da'da yar ee waalidkooda gacanta ku hayaan ee wax walba laga bixinayo ee mas'uuliyad saarnayn ee maanta reer iyo biilkeen loo dhan. Qofkaas maxaa looga baahan yahay inuu xoogga saaro inuu wax barto. Waqtigiisa ugu badan inuu waxbarasho geliyo. Waayo aqoontu marna laguma khasaaro. Waxbarashada maanta aad barataay berri toole ku anfacaysa. Qirshul abyad yanfacuka yawmal aswad. Markaa ku dadaal inaad wax barato, inaad wax kororsato. Adduunkuna maanta waa update. Wax walba wuu isbedelay maanta si degdeg ah iyo adduun maanta horumaraysa waxaad arkaysaa maalinba waxyaabo shalay mataqaanaa fursad ahaa oo maanta laga guurayo. Laakiin haddaad noqoto qof teknolojiyadda casriga TikTok iyo Facebook iyo maxaa la soo dhigay iyo comment iyo waxa ku mashquulsan dad noqoto, xaqiiqatan waxaad noqonaysaa sida diqsiga oo kale. Diqsigu adduunyada intaa leeg quran iyo saxar ku dhex jira. Adduunka intaa leeg ee Ilaahay nimcada dhigay ee biyaha dhigay wax walba oo wanaagsan ku dhex jiraan isagoo qaybta xun ayuu kaga nool yahay. Adna inaad teknolojiyadda iyo Ilaahay maanta faraska u keenay iyo mataqaanaayay opportunity-ga faraha badan la Ilaahay subxaanahu wa tacaala fududeeyay haddaad ka faa'iidaysan weydo duqsi baad noqonaysaa. oo qaybta xun baad ka isticmaalaysaa marka. Marka dhalinyaro muuqaalka kooban baa ayaan ugu talagalay in la wadaago labada qodob inaad ku dadaasho inaad iska ilaaliso. Qodobka koowaad muxuu ahaa firaaq inaad iska ilaaliso. Qodobka labaadna muxuu ahaa inaad jahliga la dagaalanto
intaan muuqaalka ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.